وليد بالمرة مو شاطر تعرفوا ليش عصوم بالمرة أنا معي عبد الدايم حسين أو دريه أنا معلم كديga dugsiga sare maadada chemistry-ga waxaan halkan isku nimid inaynu ka hadalno ama aan soo bandhigno waxa loo yaqaan maxay periodic table oo runtii noqonay markii ugu horeysay arday reer Somaliland intaan ka warqabno oo ah standard 2 fasalka labaad ee dugsiga sare iyadoo raacayo syllabuska Somaliland ee wasaaraddu inoo dejisay waa ardadii ugu horeysay markaa hindisa inay isku dayaan inay sameeyaan waxa loo yaqaan maxay periodic table oo ah cilmi hore u jiray laakiin dabadana laga keeno periodic table kiyo sidiisiya marka groupkani waa arday ka kooban 8 arday oo iskugu jira 4 hablood iyo 4 wiil oo ah classada form 2 ee isku bulshada waxa guul la taaban karaa in periodic table marka la sameeyo waxa jira waxa la yiraahdo maxay mass iyo waxa loo yaqaan maxay ram oo ah relatively atomic mass ardayda waa kuwa fahmay marka la wada mass number waa mass of proton plus neutron laakiin relatively atomic mass waa masska periodic table-ka markaan periodic table isticmaalno masska aynu isticmaalno waxa way maxay ramkan xagu ka yimid marka wuxuu ka yimid maxay waa average mass maxaa u jeedaa waxa jira wax loo yaqaan isotope muxuu ahaa curiya wuxuu jiri karaa maxay noocyo kala duwan tan waxaan oranaa waa same element maxay wadaagaan same number of protons waa same sample curiyaas waa same laakiin waxay imaanayaan different mass ama different neutrons mass kiibana afgreyn tusaalahan waxaan ku shaqeynaa ram markay doonayeen ram of periodic markay doonayeen waxaan ku shaqeynaa mass of the ferrous element curiyaa kuwaad mass ku lahaa oo lagu dhuftay abundance waa nooc marka mass weyn dhaqana soo mass weyn abundance waa nooc waa badnaashi curiyahani noocyada u jira badnaashiis weeyaan oo loo qeybinaa 100 oo loo geeyo mass of the second curiyaha labaad masskiis oo lagu dhuftay maxay ku dhufanayaan abundances maxay u qaybinaa marka 100 tusaale ahaan halkan waxa inoo yaala kuwa ardada ay soo sameeyeen raamka ay soo sameeyeen oo iyagu gacmahooda ku soo qoray oo soo xisaabiyay waxaan arkaynaa in halkan chlorine tusaale ahaan soo qaadan chlorine laba nooc bay u jirtaa mid waxa ahaa maxay masskiis muxuu ahaa chlorine kood maxaa 35 samaade chlorine koowaad waxa loo oran jiray maxay 35 chlorine kood waxa loo oran jiray masskiis waxa maxay 35 kalabaad waa imisa masskiisu waa 37 labadaas maxaan oranaa waa mass of the chlorines marka maxaan ku helaynaa kan abundance-geedu waxa maxay 75 boqolkiiba this is abundance kana maxaa loo oran 25
5 waa bedels bal kan tusaalaha sida uu faano ardayda waxay sameeyeen waxay yiraahdaan marka 35 waa mass of the first element maxay ku dhufteen 75 macnaha isotopkan koowaad ee chlorine boqolkiiba 75 ayaa adduunyada loo helay maxaynu qaadanaa 100 oo loo geeyay mass of the second one waa imisa 30 maxaan ku dhufanaya 25 maxaan u qaybinaynaa boqol labada markaynu isku dhufano boqol u qaybno waxay soo baxay 26.499 something ka labaadna wuxuu soo baxay maxay say 8.95 markay isku gooyeen waxay heleen nimadani waxay groupkan waxay heleen 35.45 haddaba halkan maxay ka fahmeen ardaydu waxay haystaan in wax leeyahay maxay haystaan oo kuwa halka ku soo diyaariyay shaqada koowaad way soo qabteen shaqada labaad waxay sameynayaan periodic table-ka shaxda marka saa loo diyaariyo curiyo waxaa loo dejinayaa shaxda periodic table waxay u degayaan inagoo u eegayna maxay protons muxuu yahay waa curiyo kasta wuxuu leeyahay proton gaar matalan 1 2 3 dabadana curiyii koowaad oo ah hydrogen matalan protonka waa 1 marka godka koowaad bay galaysaa abundancy-gii ama mahraamkii haystaan way ku gurayaan shaqada saddexaad ee groupkani ay qabanayaan waxa weeyaan ee ardaydu qabanayso waxa weeyaan in periodic table-ka mass ku haystaan shaxdina way sawiri karaan in curiyaasha ay ku guraan mid kasta godkiisa aanu macallin ahaan marka waxaan u ahay macallinka inaan hubiyo shaqada ay ardaydu qabanayso shaqada ardayda iska leh horeysii dambayso aan waxaan ahay inaan saxidu malay sababtu maxaa ku kalifaysa ardaydan ama anigu maxaa ugu kalifaysa inaan periodic table aan soo bandhig wax kala ma fahamka chemistry wuxuu ka bilaabmaa maxay periodic table wuxuuna ku dhamaadaa maxay periodic table kaas waa qodobka labaad ardayda Soomaaliyeed marka la yahay maadada chemistry waxaa loo tiriyaa inay tahay maadada ee ardaydu milaad yara nacabshay kala ma maadadan waxaa ku yar wax la yiraahdo maxay wixii touchable maxaan u jeedaa in matalan biology markaan macallinku ka hadlayo uu yiraahdo human skeleton qalfoofka marka laga hadlayo isagii baa taaban karay physics acceleration markuu dhigayo gaari baa xawaare speed inta ku dhaqaaqo kore laakiin chemistry ma lahay wax la taaban karayo sidaa weey groupkan waa groupka ugu horeeyay ee arday ah ee isku dayay inay chemistry u bedelaan wax ay maxay touchable laba inay isku dayaan waxyaabaha suuqyada laga keeno ee periodic table-ka ee saa loo keeno inay maxay ay ka dhigaan maxay kuwa iyagu ay samaysan kareen dadka halka ka dhigaysan waxaan ka codsanaynaa periodic table-ka ardayda ay soo saarayaan inuu noqdo ka standard-ka ee Soomaali oo dhan ay isticmaasho ardaydana ay yihiin qaar maxay groupkii ugu horeeyay chemistry ee schoolka laga asaaso waxaan u rajeynayaa marka maxay guul iyo gobonimo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh